بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد الهدى secondary school زبجة جغرافي مادة جغرافي كلاسية لبعض دوكسيغا سري waxaynu ku dhex jirnay chapterkeena shanaad ee Somaliland Geography. waxaynu soo dhiganay afartii cashar ugu horeeyay. waxaynu soo dhiganay locationka Somaliland, waxaynu soo dhiganay shape-ka Somaliland, waxaynu soo dhiganay physical features ama muuqaalada dabiiciga ee Somaliland, waxaynu soo dhiganay mid ka mid ah muuqaalada dabiiciga oo gubankii. cashirkeena shanaad ama lesson 5 waxaynu ku dhigan doonaa physical regionka labaad waa silsiladda buuraleyda Golis. marka cashirkeena waxaa ka hadlayaa the Highland Mountains of Golis Range region, silsiladda buuraleyda Golis ee Somaliland ku taala. Somaliland 5 physical regions ayanu qaybinay. shanta physical region mid waxa ahaa the lowland coastal plains of Guban, dhulka gubanka loo yaqaan xeebta dhaca joogiisa hooseeyo. ka labaadna wuxuu ahaa Golis Mountain Ranges, silsiladda buuraleyda Golis. ka saddexaadna wuxuu ahaa High Oga Plateau, dhulka taaga ah ee oogada loo yaqaano joogeedu sareeya. ka afraadna waxaa the Southern Tilted Howd Plateau, dhulka janjeerka ee hawdka ku yaala koonfurta dhaca. ka shanaadna waxaa the Southern Lowland Depression of Sol, dhulka xagga koonfureed dhaca ee godan ee Sol. dooxada Nugaal ayaa si fiican loogu yaqaano ama caan ku tahay. marka qaybteena aan bilaabayno silsiladda buuraleyda Golis sidii gubanka oo kale, iyaduna waxay kasoo bilaabaysaa bariga Somaliland ilaa galbeedka Somaliland ayay iyaduna dheeran tahay. gubanku wuxuu kasoo bilaabmayay bari ilaa iyo galbeed, walow uu yar dhubnaa xagga bariga oo xagga galbeedkana uu ballaadhnaa. silsiladda buuraleyda Golis waxay samaysantay baa la yidhaahdaa ama formulkeedu uu dhacay markii boundarieski aan soo dhignay formankii ee saddexda ahaa ee convergent boundarieski iyo divergent iyo transformkii ayaa markii labada plate ee Arabian plateki iyo kan qaaradda ee xagga Africa ee Soomaalida ee Afrika ahaan xisaabsan. marka dhulka Soomaalidu dhigtay dhulka Carabta ayaa dadkan juqraafiga waxay aaminsan yihiin markii hore ay isku dhejisnaayeen hal isku hayeen qayb kaliya, markii dabadeedna ay kala fuqeen. marka labada plate ee Arabian plateka iyo Somali plateku ay isku dhejisnaayeen deedna ay kala tegeen, marka diverted ay kala noqdeen. marka divertedka ay kala noqdeen movementka ku yimi ayaa ka samaysmay balay buurahani oo markii maadaama buuruhuna ay dhacaan dhanka xagga xeebta ay u dhow yihiin, dhaqaaqay labadaasi kala dhaqaaqeen ay kala tegeen meeshaasi ay jeexa noqotay, deetana ay biyuhu galeen, deedna ay badda Red Sea ka samaysantay. theory noocaas ayaa jira. marka theorygaas sidoo la raacayo ayay samaysmeen baa laleeyahay qaybtan loo yaqaano buurahan silsiladda buuraleyda Golis. waayahay waxaan leenahay silsiladda buuraleyda Golis it's a high escarpment oo meel muxuu ahay gembiya ama taagag dhaadheera running east west parallel, running iyagoo ordaya east to west, waxay ka imanayaan bari ilaa iyo galbeed, parallel iyagoo la barbara ah ama dhinac socda to coastal lowland plains, dhulkaas xeebta ee joogiisa hooseeya ee banaanada gubanka loo yaqaano. rises rapidly iyaga oo si degdega ama si dhaqsa ah markaad xagga gubanka joogto ay kor ugu kacayaan to form si ay u sameeyaan Somaliland Highland Mountain Range of Golis, silsiladda buuraleyda ee Goliska joogeedu sareeyo. markaad kastood gubanka joogto banaanada gubanka oo aad xagga usoo kacdo koonfurta, gubanku maadaama waqooyiga dhaco
waxaad arkaysaa dhulkaas joogiisu sareeyo ee haddana markastoo gubanka socoto ku dhinac soconaya marka parallel waxay u yihiin markastood bari ka timaadad galbeed u socotaad gubanka wadooyinka gubanka dhulka joogiisa hooseeya marayso waxaa kaa qabanaya dhanka koonfurta buurihii oo silsilada ah oo xidhiidh ah ayaa kaa qabanaya marka saas la waa parallel. marka escarpmentskaas dhaadheer ee parallel kuwa iyaguna bari ka imanaya ilaa galbeed soconaya ayaa la odhanayaa waa Highland Mountain Range of Golis. waayahay Golis Mountain Range silsilada buurleyda Golis has been formed waxay ka samaysantay by the divergent movement dhaqaaqaas kala tegitaanka on the margins ay kala tegayaan marginka ama boundarieska of the two continental plates labada plate ee continentalka labada plate dhuleed of the smaller Arabian Peninsula plate ee dhulka platekaas dhulka ay carabtu degto and the smaller Somali Peninsula plate iyo qaarada weekaha Soomaalidu ay degto ama dhulka Soomaalidu ay degto ee geeska Afrika dhaca iyo dhulka carabtu degto labadaas oo markii hore mid kastaba plate gaar u leeyahay Somali plate-na wuu jiraa Arabian plate-na wuu jiraa marka labada plate baa divergent baa ku dhacay ama diverted bay noqdeen way kala tegeen marka meel kastoo laba plate isugu yimaadaan waxaa jira wax la yaqaano margin ama boundary baa jira marka boundary-ga jira ama xuduudka jira ayaa keenaya in mar ay kala dhaqaaqi karaan ama isku dhici karaan oo convergent bay noqon karaan marka qaarkood marna waxay noqon karaan divergent boundaries marna transform way isweydaaran karaan marka boundary-ga kan ka dhacay bay leeyihiin waxa weeyaan waa divergent movement waa divergent boundary kaasoo keenay in movement yimaado ama ay kala dhaqaaqaan marka Golis Mountain Ranges has been formed waxay ka samaysmeen by divergent movementka kala tegitaanka on the margin ee ka dhacaya xuduudka of the two continental plates labada plate qaaradeed of the smaller Arabian Peninsula plate smaller Arabian Peninsula plate-ka yar ee qaarada carabtu ay degto dhulka carabtu degto and the smaller Somali Peninsula plate iyo qaarada ay Soomaalidu degto ama dhulka Soomaalidu degto ee plate-koodu iyagana uu yaryahay marka labada smaller plate halka ay ka kala tegeen ama divergent ka sameeyeen ay buurahaasi ka samaysmeen. qaybtan waxaan ku eegi doonaa climatka iyo population distribution of Golis Range climatka cimilada iyo filiqsanaanta dadyagu ku nool silsilada buurleyda Golis marka loo eegayo deegaamada kale ee shanta gobol ee cimilada loo eegayo gubanka iyo Goliska iyo oogada iyo hawdka wuxuu ka mid yahay Golisku meelaha dadka populationka Somaliland ku nool meelaha ay ugu yar yihiin waa dhul buurleeya waa dhul ay noloshoodu adag tahay inta badan dadka ku noolina waa dad iska reer guuraaya xoolo dhaqataa waa ku nool marka dadka ku nool reer guuraaga xoolo dhaqatadii weliba xilli roobaadka xilliga roobku da'ayo iyadoo Goliska ama buurleydaasi ay daaqsinka iyo waxyaabaha calafka xoolaha ay isticmaalayeen ama cuni lahaayeen iyadoo aad ugu badan yihiin haddana waxay door bidaan inay yimaadaan meelaha oogada ah marka xilliga barwaaqada ama xilliga gugoka lagu jiro iyo dayrta ee roobku da'o sababtuna waxa weeyaan meeshii maadaama ay buur tahay dadkii xoolo kuma raaci karaan ama xoolo kuma dhaqan karaan way adag tahay marka maadaama intaasi adag tahay weliba aad bay ugu adag tahay geela iyo lo'da ariga oo kale way ku dhaqdaano ariga oo kale wax mushkilada ama dhibaato kale ma kulmaan laakiin dhibaatada ugu badan waxay kala kulmaan geela iyo lo'da marka xilliga barwaaqada ee xooluhu daaqsinka iyo ay u baahan yihiin ee dhulka barwaaqada yahay ee halkay degan yihiin iyo meelaha kaleba daaqu fiican waxay yimaadaan oogada xilliyada jiilaalka iyo xagaaga ee dhaxanta faraha badan leh jiilaalka ay jirto xagaagana kuleylka faraha badan leh iyo dabeel xagaagu ay dhacayana waxay dib ugu noqdaan buurahoodii oo gabaad iyo hoy bay uga dhigtaan xoolahooda iyo naftoodaba marka xilligaana
dadyowgii Goliska ku noolaa dhulkoodii ku noqonayaan, populationka waa laga helayaa meesha labada xilli ee abaaruhu ay jiraan, ee xilliga xagaaga ee roobku yar yahay iyo xilliga jilaalka. waliba xilliga xagaaga waxay ka faa'iidaystaan iyagu roobkan karanta ee gubanka ka daa ee dhanka xeebta ka imanaya ee buurta dusheeda ku daaya, dabeetna biyuhu ay dib ugu noqonayaan gubanka. oo roobka karanta isagoo astaamihiisa waxaa ka mid ah inuu ka da'o meesha ay badda iyo buurtu ku kulmaan oo halka gubanka ah. marka gubanka intaa xeebta roobkuna wuxuu ka dhashaa buurta dhalisa, kadibna dhanka gubanka xigta ayuu da'aa. marka roobkaas wuu caawiyaa iyaga. marka inta badan waxaa la dhahdaa dhulka buuraha ee Golistu marka sanadka oo dhan loo eego dhulkoodu waxay u badan yihiin dhir cagaaran oo green ah. laakiin xilliga daaqsinka badan uu jiro ee dhulka kale lagula qabo waxay yimaadaan oogada. xilliga xagaaga iyo jilaalkana waxay ku nagaadaan oo ay ku noqdaan buurihii, iyagoo ka dhiganaya hoy iyo gabaad xoolahoodina ay ka helayaan. During inta lagu guda jiro the rainy season, xilli roobaadka, the Golis Range silsilada buuraleyda Golis has good grazing lands. waxaa leeyahay dhul daaqsinka ku fiican for the animals, waxyawaanadu ay daaqsin fiican ka helayaan. Through mountainous areas, marka meelaha buuraleyda la marayo, seem waxay u muuqda to be rough, inay raf ku tahay ama ku adag tahay, dhib ku tahay for the camels geela and cattle iyo lo'da. meeshana daaqsinka waa laga helay, laakiin labada qoloba ama labada nooc ee xayawaanada xoolaha way ku adagtay. haddaba the pastoralists, dadka xoolo dhaqatadii, prefer waxay door bidaan the plains, banaanada in the upper ogo ku yaala oogada sare during the spring, xilliga guga, but laakiin the summer seasons, xilliyada xagaaga, dayrashtu waxay u ordaan u degdegaan to Golis Range, inay tagaan silsilada buuraleyda Golis to find say uga helaan shelter, waxay u helayaan hoy say u helaan for their animals, xayawaanadooda against summer, oo markaa ay kaga gabanayaan summer winds, dabeelaha xagaaga. dabeel xagaaga ay gabaad iyo hoy uga dhiganayaan. marka taasay keenaysa inay dib ugu noqdaan xilliga xagaaga. jilaalkuna waa la mid. halkan waxay ku ogdeen vegetationka iyo wildlife-ka Golis Mountain Ranges, silsilada buuraleyda Golis dhir noocyo laga helaa iyo xayawaano noocyo laga helaa. dhirta laga helo inta badan Golisku waa dhir aad iyo aad u qiimo badan, waa dhir manaafacaad fara badan leh, waa dhir Somaliland oo kale markaan joogno, waliba dhanka bari ee buuraleyda Golis la joogo, la dhoofiyo oo il ganacsi Somaliland u ah. ganacsi fara badan, lacag fara badan ay kasoo xarooto, dad badanna ay ku nool yihiin. oo dee dhirta halkaa ku qoran dhammaantoodba waa la manaafacaadsadaa, manaafacaad aad qaaliya leeyihiin. dhirta waxaa ka mid ah geedka koowaad oo frankincense la yidhaahdo, waa kan fooxa iyo beenyada iyo waxyaabaha laga sameeyo. fooxa iyo beenyadu labadubana waa laba shay oo dalkeena laga dhoofiyo oo il ganacsi ama il dhaqaale u ah. shirkadda ugu caansan ee ka ganacsataan ay tahay shirkaddan magacaaba la baxday ee la yidhaahdo asli meydi magacaasi la baxday. geedka labaad molly tree baa la yidhahdaa. geedka isagana fibreska ama waxyaabahan xarkahan ama miiqyada naturalka ee dabiiciga ah ayaa laga sameeyaa. marka waa geed jiridiisa sare ama qeybtiisa sare stemkiisu awoodi leedahay in la miiqo, deetana laga sameeyo xarko manaafacaad leh oo natural fibreska laba loo qeybay, qaar artificial iyo qaar natural oo bac ah oo artificial iyo qaar natural oo dhirka yimi. marka kuwa naturalka ee geedkaas looga manaafacaadsadaa. marka waa laga farsameeyaa, waa la warshadeeyaa, dabeetana xarkaa kasoo baxa natural. iyo geedka loo yaqaano dayibka oo dhirta aadka u dhaadheer ah oo la yidhahdo ilaa 20 ilaa 25 mitir buu gaadha dhererkiisu, jiridiisuna aad u weyn tahay, oo dhirtan laga sameeyo looxaanta laga sameeyo ayuu ka mid yihiin. marka saddexda geed halkaa noogu qoran oo ka mid ah dhirta laga helo Golis Mountain Rangesku, saddex geed oo manaafacaad ballaadhan u leh bani aadamka. The most commonly found vegetation vegetationka inta badan ama si guud looga helay in Golis Mountain Ranges
silsiladda buuraleyda Golis include waxaa ka mid ah ku jira frankincense. marka frankincense-ku waa geedkaas aan sheegnay fooxa iyo beeyada laga sameeyo. Moly tree isna waa geedka natural fibers soo saara, that produce kaasoo soo saara a kind of natural fibers, nooc ka mid ah fiberska naturalka ama xadhkaha iyo miiqyada dabiiciga ah. ka saddexaadna waa geedka dayab tree-ga loo yaqaano, which is used kaasoo loo isticmaalo for hardwoods. hardwoodskuna waxa weeyaan looxaanta laga sameeyaa. sidoo kale waxuu ka mid yahay dayab tree-gu dhirtan waraaqahan aan wax ku qorano laga sameeyo, oo iyagoo de la miisaamay aada loo yaryariyey. marka looxaanta iyo waraaqaha iyo waxaasaa laga sameeya fiberska. marka geed isaguna aada qiimo badan. qaybta labaadna waxaan ku eegi doonaa wildlife-ka. marka wildlife-ka laga helo shimbiraha laga helaa wild ah, animals baa laga helaa wild ah, way fara badan yihiin. laakiin waxay caan ku yihiin silsiladda buuraleyda Golis, waraabaha, baasha deerada iyo shabeelka. The Somaliland Highland Mountain is a home waa guri of a large number of wildlife animals. laga helaya tiro fara badan oo dhir badan oo duurjooga, xayawaano badan oo duurjooga, and birds iyo shimbiro such as sida hayni baa laga helaya waraabihii iyo gazelle baashan qasaasha la yidhaahdo ama deerada, iyo tiger waa shabeelkii. markaa saddexdan halkan kusoo qoray waa kuwa ugu caansan popular oneska weeyaan, waa kuwa ugu caansan. xayawaano kale iyo dhir kaloo fara badan, waxaan jeedaa xayawaano kale iyo shimbiro kaloo fara badan ayaa laga helaa, laakiin kan intana ugu caansan inta laga helo silsiladda buuraleyda Golis. qaybta labaad ee silsiladda buuraleyda Golis ka hadlaysana halkaas ay noogu joogaysaa. marka waxaa inoo hadhay 3 qaybood oo kale, physical regions. waxaa inoo hadhay oogadii, hawdkii iyo nugaal.